Ku soo dhawow janaalka Mustafdoobiyo fadlan saar calaamadda like-ta adigoona sidoo kalena hoggaanka sare ee Ahlusunna wal-Jamaaca ayaa ka hor yimid arrinta doorashooyinka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ee ka socda magaalada Dhuusamareb iyadoona doorashada ay gacanta ku hayso dowladda federaalk Soomaaliya. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxa guud ee Galmudug gaar ahaan Ahlusunna wal-Jamaaca Sheekh Maxamed Shaakir ayaa waxaa lagu cadeeyay in Ahlusunna aysan qayb ka ahayn doorashada Galmudug ka soconaysa oo sheegeen in ay boob ay ku hayso dowladda federaalk Soomaaliya. Waa sida war-saxaafadeedka Ahlusunna wal-Jamaaca ku qornaa. Sidoo kale qoraalka ka soo baxay Sheekh Shaakir ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay duubatay soo xulista 69 xildhibaan ee laga rabay in ay soo xulaan odayaasha dhaqanka, waxaana arrintani ay ku tilmaameen inay sharci darro tahay. Ugu dambeyntii, Sheekh Shaakir ayaa musharaxiinta iyo shacabka reer Galmudug ugu baaqay inay fiiro gaar ah u yeeshaan boobka ay ku eedeeyeen in ay dowladda federaalk Soomaaliya ku hayso Galmudug. Sidoo kalena doorashada Galmudug ayaa dhinaca kalena waxa ay guddiga qabanqaabada doorashadaasi ee soo saareen liiska iyo weliba shuruudaha looga baahan yahay musharaxiinta doonaysa inay ka qayb galaan doorashada madaxtinimo ee islamarkaasina madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug iyo ku-xigeenkiisa. Waxayna shaaciyeen shuruudaha laga rabo musharaxiinta inay u tartamaysa xilkaasi. Guddiga doorashada oo qoraalka soo saara ka koobnaa ilaa 9 qodob ayaa lagu baahiyay in musharaxiinta ay u furan yihiin musharaxnimadooda, waxaana ugu muhiimsan in qofka uu yahay marka hore Soomaali muwaadin ah kana soo jeeda deegaanka Galmudug, islamarkaana uu haysto shahaadada jaamacadeed ama waayo-aragnimo 5 sano ah siyaasadeed. Sidoo kalena shuruudaha ayaa waxaa qayb ka ah in musharaxa u tartamaya xilka madaxweynaha in laga rabo lacag gaarayso inuu bixiyo $20,000 islamarkaasina kan u tartamayo madaxweynaha Galmudug inuu noqdo. Sidoo kale ku-xigeenka ayaa sidoo kalena waxaa laga rabaa inuu haysto shahaado iyo sidoo kalena ama hadduu haysan waayo-aragnimo 5 sano siyaasadeed oo ku dhex jiray ama inuu bixiyo lacag gaarayso $10,000 Mareykanka. Maalmihii ugu dambeeyay guux siyaasadeed ayaa ka jiray Galmudug, islamarkaasina waxay arrintani shacabka iyo dhammaan qaybaha kala duwan siyaasadda Soomaaliya ee isha ku hayeen Galmudug waxay kasoo naasacdaadan doono.